banaanka caanka ah ee Maxamed Siciid Biike ayaa ka raali geliyay taageerayaashiisa iyo bulshada jecel fanka ee ku nool magaalada Nairobi dib u dhac ku yimi showgiisii habeenkan caawa ka dhici lahaa magaalada Nairobi xaafadda Parkline sababa jira awoodoodii taasi oo uu sheegay dadweynaha intii tigidhada goorsatay inay ku soo geli karaan toddobaadka dambe loona soo sheegi doono goobta lagu dhigi doono showgaasi ama lagu qaban doono haddaba fanaan Maxamed Siciid Biike oo la hadlaya dadweynaha magaalada Nairobi iyo sidoo kale taageerayaashiisa ayaa waxa uu yiri sidaasan عاوشوقي دب ودعي وانكحما هين دب ودعو ويق الدنبه بان كدغني ما شاء الله قفل وتجفتو غوستي كاسو بو كغلي اد بو مهسنتين arrintii dib u dhaca ku keentay wax kale maaha arrin siyaasadeed bay ahayd taana mid ka sii qurux badan baynu samaynaynaa ma sha Allah hana aad baan idinka raali gelinayaa sida idinku dhacday أول هراء بحبار السلاي دركين بانو نجاد ما شاء الله عاد بقى مهسنتين عندي كده بريسي هوشة فلسطين هوشة قشينا دولة داكو بدتشرتها أرنتو ده سيفي وقروح بدن بالو سكوري عاد بقى مهسنتين showgaasi oo ka dhici doona toddobaadka soo socda magaalada Nairobi ayaa dhammaan dadweynaha iyo taageerayaasha Maxamed Siciid Biike iyo inta jecel fanka lala socodsiin doona goobta dambe ee lagu qaban doono showgaasi iyo maalinta iyo taariikhda uu noqon doono